waafow kulankan oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee degmada Marka markii uu soo dhamaaday ayaa banaanka hore ee xarunta waxaa shir jaraa'id saxaafadda ugu qabtay xoghayaha dowladda hoose ee degmada Marka Maxamed Cusmaan Yariisow waxaana uu sheegay in taalo magaalada looga dhisayo gudoomiye waafow Yariisow ayaa sheegay inaysan istaagi doonin adeegyada dowladda ee uu bulshada u hayay gudoomiyaha dhammaan shacabka Soomaaliyeed jecel dowladnimada dhammaan meel kasta oo joogan dal idibid waa salaamaya maanta waxaan taaganahay meeshii ay masiibada ka dhacday ay ku dhinteen 13 oo ciidan dawladeed ahaa iyo gudoomiyihii degmada Allah u naxariista mudane Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ay ku dhinteen ayaan taaganahay waa meeshii dawladda hoose geedkan aan taaganahay waa geedkii ay iska dhacay qaraxii oo masiibada ahaa arxan darrada ahaa ee ay geysteen al-shabaab marka maamulka iyo madaxda koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyad ahaan inay meeshaanay masiibada ka dhacday in taalo lagu dhiso oo ah xusuus taariikhi ah oo as u horeeyo gudoomiye Cabdullaahi Cali Axmed Waafow in taalo loo dhiso codsi anoo maadaama aan xogaha dowladda hoose waxaan codsanayaa taaladaasi macnaa in meeshaan laga taago si ay taariikhda u gasho maadaama uu ahaa nin halyeey ah oo qarannimada jecel nabadda jecel oo aad iyo aad nabadoon ahaa degmada Marka u soo halgamay aniga asagana taariikh dheer wada shaqaynteena aynu soo dhaxmartay Allah u naxariisto laakiin ma dhiman waa dhuuntay haddii dadkii cadawga al-shabaab ay leeyihiin waafow nadaas dhinto gobolkan waa qabsanaysiin ma qabsan doonaan al-shabaab mana qabsan doonaan dagaalkii aday lahay waa laba jibaari doonaa wixii la shaqeynayay iyo wixii tababaraa joogaan dalkana cid laga heebsanayo male ninkii qarannimo jecel oo dawladnimo jecel waan la shaqeynaynaa ninkii nabad aan rabana kulleeybu wax iska helays leeyahay Allah u naxariisto Cabdullaahi Cali Axmed Waafow codsigayga maamulka koonfur galbeed waxaan leeyahay taalo in meeshaan laga dhiso oo xusuus ah ayaan ra'yi ahaan go'aansanay maadaama ay yihiin madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo xildhibaanada dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay taaladaasi xusuusta ah oo degmada Marka asiibtay aad iyo aad in taaladaas la dhigo tan kale labaad jaaliyadda ku abtirsata gobolka Shabeellada Hoose oo dibidaha jooga ayagana waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan taaladaas farsamo iyo dhaqaale iyo wax walba inay nagu taageeraan taaladaas oo ah xusuus gudoomiyihii degmada Marka Cabdullaahi Cali Waafow oo taal in loogu taago bartii asku dhintay waaye Allah u naxariisto intii dhimataba sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xoghayaha amniga degmada Marka isagoo sheegay inay si laba jibaari doonaan howlgallada ammaanka lagu sugayo waxaan leenahay eema dhagar qabaha oo beegsaday oo dhintay waxaan leenahay wixii ka dambeeyay inaan dabagal aan ku jirno waan qaban doonaa faro kulan oo soo qaban doonaa insha Allah waan ku daba jirnaa waan qabanaynaa wixii kale magaalo ku jirin waan qabanaynaa marka gacmaha ku dhignan wallahi cidna waa yeelmeen cidna waa yeelmeen cidda waa yeelin male aniga waan dhimanaya gudoomiyaha waa dhintay wixii ka soo horeeyay dhintay aniga inaan dhinto ayaan diyaar u ahay waxaan diyaar u ahay anoo ku hadlayo xogeynta amniga degmada waxaan ballan qaadayaa in faro kulan soo dhigi doono magaalada Marka wixii ku jiro oo qashin ah oo ay soo dirteen qawaariijta inaan farahan ku soo dhigi doono ugu dambeyn afhayeenka ururka dhalinyarada Xasan Baay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhankooda inay qayb ka noqdaan taalada loo dhisayo marxuum Cabdullaahi Waafow kulay waa taqaan meesha joogno waa degmada Marka waa meeshii masiibada bir dhaweeta ay ka dhacisay isla geedkii sidii hore idin sheega waaye xogayaha dowladda hoose ee degmada Marka waa baaq u jeediyay maaragtay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose dhammaan xildhibaanada wasiirada nagu matelo dhammaan waxay idin soo direynaa baaq kaasoo ah in taalo loo dhiso mujaahidkii naga geeriyooday gacan cadowna ku baxay waxaan idin leeyahay isgarab taag baa meel lagu gaaraa wada tashi ka dhalinyaro ahaan ka degmo ahaan
ururka dhalinyaro ahaan annaga diyaaraan nahay in wax walba amaamira ka soo baxo degmada aan u hogaansanaano kulley ka dhalinyaro ahaan annaga diyaar baanu nahay sidii hore la idinku sheegaba dhammaan saddexda waaxood wadajir iyo holwadaag iyo maxaa la dhahay si horseed waxaan ka codsanayaa in ay amaamirta maamulku ka soo baxay u hogaansanaadaan 27 July bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ruux nafti halliga uu isku qarxiyay banaanka dawladda hoose ee degmada Marka halkaas oo ay ku geeriyoodeen Allaha u wada naxariistay gudoomiyaha nabadoono iyo qaar ka mid ah dhalinyarada degmada kuwaas oo dhammaantood ahaa indhihii bulshada magaalada Marka Cabduqaadir Ismaaciil Radio Marka